laakiin annaga qutrigeenna Soomaaliya la yiraahdo laba dariiqo ayaa soo gaartay waxaa soo gaaray dariiqatul qaadiriyah iyo dariiqatul idriisiyah labadaas soo gaartay mid walbaahiba waxay leedahay laba laamood oo waaweyn ayay leedahay dariiqatul qaadiriyah waxay leedahay laba laamood oo kala aweysiya iyo zayliciyah sidoo kale dariiqatul idriisiyana raxmaaniya iyo rashiidiya ayay leedahay dhammaantood waxaan aaminsanahay qof kastoo maanta la weydiiyo inay ahlu xaq yihiin ahlu xaq haday marka yihiin sida marka intaas aan isla qirno midda xigtaa waxa waaye salka inaan isla galno isku meelna ka soo jeesano ikhwaani fillah maanta dadkeennii in yar oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u waafajiyey maahane kulli waxay u badan yihiin dad mataqaanaa jaahiliina oon cilmi aqoon ayay u badan yihiin waxay marka baylaha macnaha u yaalaan dadka waxa noocaas ku shubaya ayay meel bannaan u yaalaan waxaa la rabaa marka dhammaan ninka maantay duruusta akhrinaya oo ilaahay diinkiisii ummadda ku anfacaya iyo midka maanta mataqaanaa isagu baranaya xilka berri u yaallaaho waa ummadda in la badbaadiyo ummadda in la badbaadiyo waaye waxaana lagu badbaadi karaa in diinka la baro oo lagu anfaco ilaahay diinkiisa ayaa lagu badbaadi karaa waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa waxaa la weydiiyey ayu naasi khayrun baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dadka yaa u khayr badan markaasba wuxuu yidhi anfacuhum licibaadi illaah dadka waxaa u khayr badan ilaahay addoommadiisa midka u anficidda badan idan waxa mataqaanaaye dadka lagu anfaco waxa ugu wanaagsan waa in mataqaanaaye diinkii la baro waa in quluubtoodii mataqaanaa lagu camiro macrifo iyo aqoon waa in ruuxdiisii la irshaadiyo oo la tarabiyeeyo waa in ilaahay lagu xiro waa in dhabaha mataqaanaa mustaqiimka ee ilaahay mataqaanaaye ridihiisa iyo raxmaddiisa gaarsiinaya in mataqaanaaye dadka lagu hago sidaa ayaa mataqaanaaye marka uu noqonayaa qofkii midka ugu anfici og ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa waxaa weeye marka waxaa la rabaa inaan ku baraarugsanaanno in addoommadii la anfaco diinkiina lagu anfaco lana irshaadiyo waxaa weeye marka annaga dhexdeenna markii la soo aado ahlusunna waljamaaca magacaas iyo dalladaas inta hoos joogta markii hoostooda la soo aado waxaa la rabaa walaalayaalow ziyaartan waxaa weeye ziyaaratu likhwaan baa la yidhi waxay ku dhisan tahay inama almu'minuuna ikhwa haddii bulshadu ay tahay bulsho nool ee dunida joogta waa walaalo kuwii dhintayna iloobid uma qalmaano in loo duceeyo oo mataqaanaaye aan la hilmaamin ayay xaq u leeyihiin intii marka dhimatay haddaan u ducayno inteenna joogtaahina aan iswalaashanno diinka ilaahayna isku walaashanno ayadaas ayaa mataqaanaaye na anfacaysa aanna mataqaanaaye wax ku gaaraynaa ikhwaanii fillaah xilliyadan dambe waxaa ayada nafsaddeeda gondaha ka dhalatay oo weliba calankeegu inuu taagan yahay aada moodo waxa la yidhaahdaa tacasub oo markaas mataqaanaaye lays mataqaanaaye tacasubinayo ayaa jira tii qabyaaladii mid ka daran oo mataqaanaaye dhankii diinkii iyo dariiqooyinkii iyo waxyaabihii khayrka badnaay laysku tacasubinayo ayaa jirta ayadaasna waxaa la rabaa waa fitno cadiima waa aafa cadiima dhibaatadeedii leeda waa xaaliqo aan waxba reebayni ayadana walaalayaalow aan ka digtoonaanon ummad mataqaanaa qura dhaxalkii nabiga haysata calayhi salaatu wasalaam asagiina ku dhaqmaysa ayaguna ku dhaqmaya inaan noqonno ayaa la rabaa ikhwaanii fillaah waxaa jira nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda wuxuu mataqaanaa u dardaarmay muwaafaqo iyo midnimo maxabbo ayuu beeray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la diriray xiqdi iyo xasad iyo dhammaan awsaafta madmuumada ah ayuu nabigu la diriray calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii marka wuxuu yahay
qof walba oo khayr wada in khayrka oo wada lagu garab istaago laguna jeclaado looguna garab ahaado ayaa la rabaa sidaa beddelkeed waxaa dhibaato ah qofkii khayrka waday inaan xaasidno inaan jilaafayno inaan dhibaatayno waa arrin dhibaatadeeda leh ikhwaani fillaahi waxayna mataqaanaa horseedaysaa masiir aan qurux badnayn iyo arrin aan wanaagsanayn ayay horseedaysaa waxaa xaqiiqo ah ee dadka naga soo horjeedo caqiidiya nooga soo horjeeda waxay u midaysan yihiin cadaawada ahlu sunna waljamaaca ayay u midaysan yihiin had iyo jeer waxay ka fekeraan oo ay ka tashtaan oo mu'tamaraad waaweyn oo mid daakhiliya mid caalamiya intaba ay u sameeyaan sidii looga takhallusi lahay culamaa'u ahli sunna waljamaaca iyo hadyigoodii iyo nahjigoodii sida adduunka looga tirtiri lahay ayay mataqaanaaye ay had iyo jeer ka shaqeeyaan waxaa la rabaa marka arrintaas waxaa looga hortegi karaa midnimo waxaa looga hortegi karaa muwaafaqo waxaa looga hortegi karaa in maxabo la beero in midnimo la beero in tacliimtii mataqaanaaye la fidiyo diinkii ilaahay la nashriyo ummaddana la irshaadiyo xumaantana looga digo iyadoo la isku duuban yahay sidaas ayaa mataqaanaaye looga badbaadi karaa waxaa jira dhanka dariiqooyinka horta caalamka markii la yidhaha duruq badan oo dhammaantood ahlu xaq ah masdar waaxidana ka soo fulaya ayaa ka jiray haddana ka jira laakiin annaga qutrigeenna soomaaliya la yidhaahdo laba dariiqo ayaa soo gaartay waxaa soo gaaray dariiqatu alqaadiriya iyo dariiqatu alidriisiya labadaasaa soo gaartay mid walbaahiba waxay leedahay laba laamood oo waaweyn ayay leedahay dariiqatu alqaadiriya waxay leedahay laba laamood oo kale ah uweysiya iyo zayliciya sidoo kale dariiqatu lidriisiyana raxmaaniya iyo rashiidiya ayay leedahay dhammaantood waxaan aaminsannahay qof kastoo maanta la weydiiyo inay ahlu xaq yihiin ahlu xaq hadday markay yihiin sida marka intaas aan isla qirno midda xigtaa waxa waaye salka inaan isla galno isku meelna ka soo jeesanno cadowgeennana aan wajahno sida ayaa mataqaanaaye aan nala aadan xaqiiqadu waxay tahay adiga dariiqada aad tahay maahane dariiqada kale ninka ah khayrka ka qaado nuurka ka qaado ka faa'iidayso ka wanaag qaado midka adugu aad tahay ninka ahna ka qaado wuxuu ku dheer yahay dhammaan xikmadda iyo nuurka iyo khayrka meel allaale meeshaas rabtaad ka qaadanaysaa in mataqaanaa la kala qoqobnaado la kala isqabyaaladeeyo la isdhibaateeyo waa wax shaydaan gadaal ka riixayo waa waxaan mataqaanaaye fiicnayn walaalayaalow arrintaas boqolkiiba boqol waa laga digayaa culammadu way nooga digaysaa had iyo jeer waa mataqaanaaye iswalaalaysi inama almu'minuuna ikhwa sidaas ayaa mataqaanaaye aan astaanteennu tahay ayada ayaa noo ballama xilqooyinka mataqaanaaye waxyaabihii xilligii hore aad iyo aad mataqaanaaye ognaay waxaa ka mida lagu barwaaqoobay oo khayr lagu gaaray xilqooyinka nuuc allaale nuucayihin waa ognaa jireen waxaa weeye marka ha laga dadaalo cilmigii mataqaanaaye barashadiisii ha laga dadaalo in badan nashrintiisii ha laga dadaalo in sha allahu tacaala markaas waxii mataqaanaaye bidacda iyo dhibaatooyinku ay buufinayaan waxaa weeye waxba ma noqon doonaan xaqaa ka adkaa doona ilaahay wuxuu yidhi bal naqdifu bilxaqi cala albaadili fayadmaqhu buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa ayaa maskaxay doona marka mataqaanaa waxaan la sheegayo ay faafinayaan xumaanta ma socon doonaan laakiin annagu aan noqonno umma waaxidda aan noqonno isku duuban isku meel ka soo jeeda intaas waa mataqaanaaye waxaan jeclahay inaan guto in sha allahu tacaala dhammaan kelimaadkaygiina intaasaan ku soo gaabinayaa